xamse cabdi barre oo xilkii ka qaaday axmed macalin fiqi amar culus oo duldhigay wasiirada kale xanaaq iyo kala carar ka taagan xarunta golaha wasiirada xamse cabdi barre tallaabada uu qaaday xasan sheekh maxamuud ayaa kasoo horjeestay xaaladda way cakiran tahay golaha wasiirada kalena amar ayaa la duldhigay ma samayn karaan dhaqaaqa aanu ra-iisul wasaaruhu ogeyn sheegaraya warbixintan oo ku afiya dunida meelba ku toorar muuqaalka qaybta faallada nugul wadaaga aragtidiina waa hagaag aan ku bilaabo kani waa kitaabka ilaahay waa kitaab la doonayo qof kasta oo muslima inuu barto waa kitaabka cadeynaya booska aad ka dagayso jannada haddii baad guulaysato in kastood ka xifdsan tahay ayaa ay ku eg tahay gurigaaga siday axaadiista rasuulku ay sheegeen haddaba majaanis ma u weyday inaad barato qur-aanka kariimka ma ka cabanaysaa inaad labada gelinba aad shaqayso waxaan kuu hayaa maxadka tartiilul qur-aan online waa dugsi lagu talagalay qof kastoo mashquula inuu wakhtigiisa siiyo isla markaana uu hab online ku barto qur-aanka kariimka waalidweynaha qurbaha ku nool waalid ka faa'iidayso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada islaamka waana maxad kuu furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada qur-aanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida kutubta fiqiga axaadiista iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya at-tahiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur'aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil qur'aan online ra-iisul wasaaraha Soomaaliya xamse cabdi barre oo ka xanaaqsan tallaabooyin isxiga oo ay qaadeen qaar ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumaddiisa ayaa soo saaray amar degdeg ah oo ku saabsan in markaas xilkii laga xayuubiyay wasiirka arrimaha gudaha kadib markii sida la sheegay oo qaaday tallaabo uusan ogeyn ra-iisul wasaare xamse cabdi barre arrintaasi oo ku aadan inuu isugu yeeray odayaasha beelaha hawiye arrintaasi oo ku tilmaamay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre mid dhaqan xumo ku ah shacabka Soomaaliyeedna aysan aqbali karin in qaab qabiil odayaasha dhaqanka ay wasaaradda arrimaha guduhu howlahoodii u dhigto ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu markaasi amar duldhigay golaha wasiirada isagoo oo faray in wasiir aan ka fasax qaadan aanu dalka ka bixi karin manacada sababta hase yeeshee wasiirada doonay inay dibadda aadaan ayaa hada kadib warqada fasax u qoran doona xafiiska ra-iisul wasaaraha shaqaalaha dowladda oo kaliya ayaa kolkii hore farnaa inay fasax ka qaataan xarumaha ay ka shaqeeyaan kolka ay doonayaan inay wadanka dibaddiisa u baxaan axmed macalin fiqi ayaa markaasi sababta uu galaafatay shaqadiisii waxa ay dadka qaar ku sheegayaan inay tahay tallaabo adag oo uu qaaday taasi oo ku aadanay in markaasi uu odayaasha dhaqanka ee beelaha hawiye kulan la qaatay isaga oo si toos ah ugu amray in ay tagaan magaalada Baydhabo si halkaas uga qayb galaan kulan ay dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha qaban qaabanayso arrintaas ayaa noqotay mid sida weyn uga xanaajiday mas'uuliyiinta maamulka wasiir Axmed Macalin Fiqi ayaa war laga soo saaray wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya kulanka odayaasha dhaqanka la qaatay waxa la isu balansaday in la isugu tago magaalooyinka Baydhabo iyo Dhuusamareeb halkaas oo kulamadu ka dhici doonaan sababta ay dawladdu u abuurayso beelaha hawiye ayaa waxa markaasi ay sheegayaan xogo inay tahay si dagaalka al-shabaab lagula jiro ee markaasi ay dadka deegaanka hormuudka u yihiin ay u noqoto mid markaasi noqon doonta in si toos loo garab istaagi doono dadka shacabka xaaladaha guud ee la xiriira sida loo maareynayo arrinta la xiriirta dardargelinta dagaalka al-shabaab lagula jiro ayuu sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha guduhu inay sidoo kale ay ka qayb qaadan doonto haddii odayaasha dhaqankana la abaabulo sida xogaha kala duwan aanu ku helayno wasiir Axmed Macalin Fiqi ayaa xilkii laga xayuubiyay iyadoo lagu wargeliyay in aanu wax dhaqaaqa gudaha dalka ku sameyn karin wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta Axmed Macalin Fiqi ayaa kulan wadatashi oo la yeeshay odayaasha dhaqanka Galmudug kala hadlay kaalintooda la xiriirta dib u heshiisiinta xasilinta deegaanka
laga xoreeyay al-shabaab iyo ka feejignaanta dhagartooda iska korkeenista beelaha. wasiirka wuxuu iftiimiyey sida ay kooxda al-shabaab u qorsheynayaan isku darka beelaha isaga oo soo qaatay in inta dagaalka lagula jiro ay markaasi tahay inay dowladda federaalka Soomaaliya garab istaag xoogan u muujido odayaasha dhaqankuna ay garab istaagaan inta lagu jiro xornimada inay mar habaabiyaan dib u xoreynta socodka oo ay ka dhigi doonaan dagaal beel ku duushay deegaan beel kale. wasiirka ayaa markaas hoosta ka xariiqay in al-shabaab ay ku tilmaameen dadkii ay tuulooyinka gubeen kuwo mooriyaan ah. Ra-iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre amarka uu soo saaray ayaa si toos u saameeyay golaha wasiirada intooda badan. Shaqaale xogaan qaybta fadlan guriga qartiin tan iyo kan sidoo nabadgeliyo. kani waa kitaabka ilaahay waa kitaab la doonayo qof kasto oo muslima inuu barto waa kitaabka cadeynaya booska aad ka dagayso jannada hadii baad guuleysato in kastood ka xifdsan tahay ayaa ay ku egtahay gurigaaga sida axaadiista rasuulku ay sheegeen. haddaba ma jaanis ma u weyday inaad barato quraanka kariimka ma ka cabanaysaa inaad labada gelinba aad shaqayso waxaan ku hayaa maxadka tartiilul quraan online waa dugsi lagu talagalay qof kasto mashquula inuu waqtigiisa siiyo isla markaana uu hab online ku barto quraanka kariimka. waalidweynaha qurba ku nool waalid ka faa'iideyso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka waana maxad ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada quraanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiista iyo tafsiirka. waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya at-tahiyaadka salaada iyo aayad kursida. waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul quraan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool. ballanteenu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil quraan online.